السلام عليكم mudanayaal iyo marwooyin kusoo dhawaada mawduuceena maanta ku saabsan public speaking ama fagaara ka hadalka. Inaad barato xirfadan aad iyo aad bay muhiim u tahay waqti xaadirkan. Public speaking ama fagaara ka hadalka mawduucan ayaan kusoo qaadan doonaa muuqaalkiina maanta oo aan si faahfaahsan uga hadli doono. Fadlan soo raaca subscribe saar kanaalka kuna soo dhawo muuqaalka marka hore. saaxiibayaal kusoo dhawaada mawduuceena maanta public speaking ama fagaara ka hadalka. kusoo dhawaada mudanayaal iyo marwooyin mawduuceena maanta. soo qaado koobkaaga shaaha ila daawo mawduuca. Talaabada koowaad ee qaadayso si aad u dhisto xirfadda fagaara ka hadalka ama public speaking-ka. Xirfadda fagaara ka hadalka waa inaad number 1 waa inaad sameysaa cilmi baaris. waxaad ka hadlayso xog fiican iyo fahamka mawduucaaga. taasi waxay kordhinaysaa kalsoonida aad ku qabto mawduucaaga. waxayna kaa caawinaysaa inaad si fiican uga jawaabto su'aalaha ama xaaladaha aan la filaynin ee lagaa weydiin karo. saaxiibayaal diyaarinta muuqaalkan waqti badan ayay igu qaadatay. fadlan lambar 2 fahmidda dhageystayaasha. labarkan ama qodobkan aad iyo nuxurkan aad iyo aad buu muhiim u yahay. waxaa muhiim ah inaad fahamto cidda aad la hadlayso si aad uga habayso hadalkaaga. say uga faa'iidaystaan ugu waxay xiiseynayaan iyo sida ay ugu habboon yihiin ee aad uga hadlayso. tusaale ahaan haddii aad ka hadlayso ama haddii aad public speaking-ka aad ka hadlaysa ay arday tahay ama arday secondary ah waa inaad mawduucaaga kusoo qaadataa waxa la xiriira secondary-ga. Number 3 tababar joogto ah. fagaara ka hadalka waa xirfad u baahan tababar. marka hore isku day inaad ka hadasho dad yar hortood ama koox yar hortood asxaabtaada. ugu dambeyn samee khudbado ama doodo dhaadheer oo ah dhageystayaal kala duwan. qodobka 4 ee kaa caawin kara xirfadda public speaking-kana kor u qaado waa kalsoonidaada dhis markaas. kalsooni dhisid markaas waxaa lagu yaqaanaa luqadda ingiriishka. markaasi kalsooni dhisida self confidence. waqti xaadirkan self confidence aad iyo aad bay muhiim u tahay inaad xirfadaada dhigto. self confidence-ga ama waa mid ka mid ah awoodaha Ilaahay ku siiyey self confidence-gu waana muhiim. waayahay qodobkeena 4 waa self confidence ama kalsoonidaada inaad dhisto markaas. fagaara ka hadalka wuxuu u baahan yahay kalsooni. markaad barato sida loo istaago loona hadlo si cad waxaad ka hortagi kartaa walaaca iyo cabsida markaad la hadlayso dad badan. Number 5 hagaaji jirkaaga iyo codkaaga. fagaara ka hadalka wuxuu u baahan yahay inaad si fiican uga hadasho markaasi mawduucaad ka hadlayso iyo inaad si fiican u isticmaasho codkaaga iyo jirkaagaba oo aad samayso body language waxaa loo yaqaano. iska ilaali inaad ku hadasho si aan caddayn ama xishood leh. isticmaal isha ku haynta dhageystayaasha dhaqdhaqaaqa jidhka si aad u muujiso kalsooni iyo isticmaal cod sare oo cad si loo maqlo. mudanayaal iyo marwooyin mawduucan public speaking-ka aad iyo aad buu muhiim u yahay. waxaan ku dhex jirnaa qaybihii dhexe ee mawduuca inagoo si fiican usoo koobana mawduuca inuu dheeraadana la diidayna si looga faa'iidaysto mawduucan maadaama dad badan aad iyo aad ugu mudanayaal iyo marwooyin diyaarinta mawduucan waqti badan ayaan ku bixiyey. fadlan subscribe inoo saara kanaalkiina. public speaking waa mid ka mid ah xirfadaha ugu fiican ama loogu barashada badan yahay waqti xaadirkan ama 2024. haddaba waxaan soo koobi doonaa dhammaan mawduucan oo aan
hal mar soo koobi doono. keliya waxaad u baahan tahay inaad xifdiso ama inaad qorato meelaha nuxurada mawduucu ku saabsan yahay public speaking-ka. haddii aad fahanto oo aad si fiican maskaxdaada ugu qorto nuxurka ama buug aad ku qorato nuxurka uu ka hadlayo mawduucani, waad awoodi doontaa inaad practice garayso mawduuca. toddobaad oo mid ka mid a kuwa ugu muhiimsan ee aanu ku qaadanayno xirfadeenna public speaking-ka waa la tashi iyo feedback. markaad hesho fikrado iyo jawaabo ka yimaada dadka kale ee ka faa'iidaysanaya mawduucaaga si aad ugu ogaato meelaha aad ka liidata iyo meelaha aad ku fiican tahay. yacni mawduucan wuxuu leeyahay qoraagu buugu soo koobaya inaad ogaato meelihii aad ku liidatay ee markaad ka hadlaysay mawduucan iyo meelihii aad ku fiicneedba. waa inaad feedback iyo markaas la tashi dadka la samaysaa si aad usii hormariso aanaad kusii kalsoonaato yacni mawduucaaga aad ka hadashay maanta. tusaale ahaan haddii aad ka hadashay lacagta iyo muhiimadda ama loof aalman haddii aad ka hadashay mawduucyadaas, kadib marka ay dhammaato xafladda public speaking-ka ama mawduucaaga ama khudbadaada ku saabsan mawduucaaga, weydii dadka sida aad uga hadashay asxaabtaada kuugu dhow markaasi ama dadka la tasho kana weydii ama wax ka weydii mawduucaagii iyo qaabkaad uga hadashay iyo meelihii aad ku fiicneyd markaad ka hadlaysay mawduucan iyo meelihii aad ku fiicneydba. tani waxay kaa caawinaysaa inaad markaasi self confidence-deeda aad hore u qaado oo kalsoonidaadu ay noqoto mid aad iyo aad markaasi u buuxdo oo aad iyo aad u fiican, aanad kusii socon karto xirfadan public speaking-ka ama faqaarka hadalka. number 8 dareen samee. faqaarka hadalku waa inuu noqon mid saameyn leh. isticmaal sheekooyin, tusaalooyin iyo su'aalo dhiirigelin leh si aad uga dhigato hadalkaaga mid xiise leh oo soo jiidasho leh. qodobkana dareen muhiima ayuu siinaya qofka markaasi dhegeystaha ah. haddii aad mawduuca kusoo qaadato sida abwaanka oo kale ama waxa loo yaqaano markaasi gabayada af soomaaligeena, jumladaha luqadaha ingiriishka iyo kuwa carabiga, sidoo kale inaad ka hadasho dhiirigelin ama hadal dadka dhiirigelin u ah, inaad soo qaadato sheekooyin hore ama tusaalooyin, inaad mawduuca ku dhex isticmaasho su'aalo markaasi dhiirigelin leh si aad uga dhigato hadalkaaga mid xiise leh oo soo jiidasho leh. haddaba adigoo raacaya tallaabooyinkan ayaad noqon kartaa qof public speaking ah oo ku kalsoon xirfadiisa public speaking-ka. haddii aad mawduucan si fiican u dhegeysato una fahamto, waxaan hubaa inaad ka hadli doonto public speaking kasta ama fagaaro kasta oo markaasi aad doonaysa inaad ka hadasho. waqti xaadirkana aad iyo aad bay muhiim u tahay inaad taqaan xirfadan public speaking-ka ee aadan ku sharaxnay. sidoo kale waxaan ku darayaa qodob 9aad oo buuggu aanu ku darin oo isagna muhiim ah. 9ka qodob baan kusoo koobayaa mawduuceenan maanta ku saabsan public speaking ama fagaarka hadalka. waxaa loo yaqaano fearless, xabsida markaasi. marka hore ee aad soo istaagayso ama aad doonayso inaad hadasho waa inaad wax iska ilaalisaa. waxaa loo yaqaana fear. dadka qaar baa iska cabsada uun fearless markaasi aad iska ilaaliso ka digtoonaato. dadka qaar unbaa waxay isaga soo ururiba waxaa lagu odhanayaa sidan buu yahay, waxaa lagu odhanayaa wax dadkani kugu mashquulsanaa ee adigu waxaas ku mashquulsanaan markaasi naftaada ku mashquulin. cid markaasi kugu mashquulsan adiga ma jirto oo waxa weeyaan adiga kugu mashquulsan siday dadka qaar sameeyaan ee iyagoo isku mashquulan intooda badan. mawduuca haddii aan soo koobo wuxuu ka hadlayay public speaking. waxaan ku soo qaadanay mawduuceena manux. ahlan wasahlan, asalaamu calaykum. mawduucan halkaa idinku soo afmeerinaa intaan ka kulmi doona mawduuc xiga. asalaamu calaykum. haddii aad soo gaadhay daawashada halkan ama muuqaalka, fadlan subscribe saar.